waxaan rabaa inaan sharaxaad kooban ka bixiyo xanuunka lagu magacaabo diverticular disease waxa uu yahay iyo waxa ay kala yihiin diverticulosis iyo diverticulitis ayaan kala saaraynaa insha Allah. Qofka marka ay yar tahay cunistiisa cuntooyinka qolofta leh sida galleyda, masagada, misirta, digirta iyo wax la mid ah, tufaaxa, yani karootada, koostada, cuntooyinkan fiberska leh ama waxaan qolofta leh si kala dilo dhiga Soomaali ahaan markay ku yar tahay arrinkan waxay sababaysaa suurtiin ka arkaysaan calool fadhi. Caloosh inay fariisatana waxay keenaysaa saxarada inay adkaato maadaama caloosh markay fariisato saxarada qoyaanka laga nuugaya way qalalaysaa way adkaanaysaa. Arrinkan waxay sababaysaa qofka maalmo kadib inuu isku dayo in saxarada si xoog ah ku soo saaro oo majiiro. Arrinkaas xoog ah ku soo saarayana sa arkaysaan hortiin waxay cadaadis saaraysaa mandhiciraha waaweyn. cadaadiskaasna waxaa ka dhalanaya ugu dambeyn in bulging ay sameeyaan gaar ahaan meesha ay ka jilicsan yihiin mandhiciraha. bulging waxa waa in ay diicsamaan iyo wax la mid ah. diicsankaas marka waxaa ka dhalanaysa arkaysaan waxyaabahan kuusyada ah ayaa ka dhalanaya. kuusyada marka waxaa loo yaqaanaa diverticular. haddii ay bataan waxaa loo yaqaanaa suurtiin ka arkaysaan diverticulosis. diverticulosiskaas haddii inflammation ama caabuq ku yimaado oo infection ku dhashto waxaa loo yaqaanaa diverticulitis. marka saas ay u kala duwan yihiin. diverticular waa marka numberkooda yar yahay wax yar yahay. haddii numberkooda oo bato waxay isku bedelayaan macnaha tiradooda ay badato oo dhowr xabay noqdaan saan oo kale waxay isku bedelayaan diverticulosis wax loo yaqaan. haddii inflammation ama caabuq oo ku yimaado diverticulosis macnaha wuxuu isku bedelaa ama waxa loogu yeeraa diverticulitis ayaa loogu yeeraa. marka xaaladda intaan gaarto diverticulitis ay gaarto waxaa dhacay qofku inuu xanuun ka dareemo bugga gaar ahaan dhanka bidix ee hoose halkaan xariiqa sare inuu xanuun fara badan dhankan bidix uu ka dareemo. sidoo kale waxaa usoo raaci kara qandho waa haddii meesha infection oo ku jiro qarqariyo wax la mid ah. waxaa kaloo soo raaci kara lalaba iyo matag caloosh inay fariisato yani meesha asalkeeda cilada ay ka timaaday ah dhiig inuu ku arka saxaradiisa wax la mid ah iyo danqasho si guud bogo inuu ka dareemo ugu dambeyn. marka xanuunkan asalkiisa wuxuu ka yimaadaa cuntooyinka qolofta leh oo hadda aan sharaxnay sida galleyda, masagada, misirta, mashaarida laga sameeyo waxaas wax la mid ah, soorta laga sameeyo ama digirta wax la mid aadan cunin, tufaax haddii aadan cunin, mooska haddii aadan cunin, karootada haddii aadan cunin, koostada oo kale haddii aadan isticmaalin. waxyaabahana waxay keenayaan in calooshii ay fariisato haddii mid ka mid ah ama qaar ka mid ah aadan cunin isbuucii dhowr jeer. marka ku dadaal cuntooyinka qolofta leh si xanuunkan iyo xanuunada la mid ah uga hortagto intaysan xaaladda faraha ka bixin. haddii ay xanuunkan ama calaamadaha aad dareemaysid la xiriir dhakhtar soo baaritaan kugu sameeyo soo uu xaqiijiyo kadibna kaaga daaweeyo insha Allah. Assalaamu calaykum.